ururka ONLF ayaa mar kale ku baaqay in si nabad ah lagu sii daayo Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo horey dowladda Soomaaliya ay ugu gacan gelisay Itoobiya. ONLF ayaa sheegtay in sii deynta Qalbidhagax lagu xiray shuruudo ay ka mid tahay in uu ka laabto mowqifkiisa siyaasadeed. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrintaasi ka waraystay afhayeenka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge. wadahadalladaas wax lagu heshiiyey ma jirin. waxaa qolada dhexdhexaadiyaashii ay kenyaatiga ay soo jeediyeen inaan albaabka wadahadalka la xidhin maadaama wax lagu heshiiyey ayna jirin wax si kala fogaansho badan aan la samaynin. marka ma jiro hadda wadahadal socdo arrintaa ku saabsan. qolo si cad u diido wadahadal ma gelayna tirina ma jirto. waan gartay. wax wadahadal oo ku saabsan in maxaabiis la sii daayo miyay ku jireen maalmahaas? wadahadalka way ku jireen maxaabiisin, laakiin laguma heshiinin oo sida maxaabiista noo sii daaya iyo xigaas ma ahayn. waxyaabihii lasoo qaaday bay kamid ahayd in waxyaabihii aan lagu heshin markii wixii waaweynaa lagu heshin waayo kuwii kalena lama soo qaadin. marka maxaabiisiideyntani waxay ka socotay Ethiopia oo dhan bay ka socotay. bareesharkii ka dhashay banaanbixii ummadaha amxaaradii oramo badan oo la xidhxidhay, bandoogii ama marshal lowgii lagu soo rogay sanadkii hore, dad kumaan oo lagu xidhxidhay, adduunyada oo ku ceebaysay, saxaafadda adduunka oo la socotay. arrimahaasay ku xalinayeen. marka waxaa la yidhi si guudba maxaabiista oodaha looga qaado. hawshaasay hadda xabsigan ku yaala magaalada Addis Ababa ee qaalid liyada ee weyn 9 ruux oo Soomaali ah baa ku hadhay. dadkii kale dhan waa la sii daayay. waan gartay. haddaan si gaar ah ku weydiiyo Qalbidhagax oo aan ognahay in muddo fogeyn ka hor laga qabtay magaalada Muqdisho laga qaaday, waxaa warku nagu soo gaadhayaan in loo soo bandhigay in la sii daayo hase yeeshee shuruudo lagu xidhay. arrimahaasi may jiraan? way jiraanoo waxaa jira cadaadis adag oo la saarayo, lagu qasbahayo in jigjiga la geeyo, in taliska Ethiopia ay isticmaalaan oo codkooda uu ku hadlo, oo saxaafadda uu ka hadlo, oo si iyaga qurxinaysa u hadlo, oo muxuu ahay dadka Soomaalida u abaabulo inay garab istaagaan taliska Ethiopia oo ay ka hortagaan shucuubta banaanbaxaysa ee goobnimo doonka ama xaqbeydayga ah ee iska dulqaadaysa heeriyada taliska muxuu ahaayey Ethiopia haysta. marka arrimahaas oo isku dhafan baa waayahanba ku socday, isna wuu diidanaa. marka waxaa jira cadaadis dheeraad oo hadda arrintaa ku saabsan oo aada uga digayna caalamkana aan maqashiinayno, yacni inay xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka. nin maxbuus siyaasi ah oo dal kale laga soo afduubay, oo dal kale soo dhiibay, oo dawlado kale ku lug leeyihiin, oo qadiyad umadeed matelayay, oo hogaamiye siyaasi ah, in misuseka intaa la eg adeegsiga qaabka daran ee maaragtay addoonsi noocaa in loola dhaqmo aad iyo aad bay xuquuqul insaanka ugu xun tahay. arrintaasuna waxaan yani wax la qaadan karaya maaha. arrintaasi way jirtaa. Cabdikariin cadaadiskaasa haysta. dee waan insha allahu hay-adaha xuquuqul insaankana waanu ka howlgelaynaa. waan gartay. waxaad kaloo sheegtay in dad Soomaali ay ku hadheen isla xabsigii laga sii daayey dad kale mucaaradka oromada iyo amxaarada isugu jiray. xubnahaasi ma ONLF bay ka tirsanaayeen? xubno ONLF iyo dad shacab oo la iska soo eedeeyay. sidaadaba haddaad Soomaali tahay, mutaham baad tahay, eedaysanaad tahay weligaaba, in lagu xidho iyo inaad banaanka joogto way dhici kartaa. in lagu xidhona way dhici kartaa inaad geelaaga iska raacanaysan, laakiin si dabiici aad eedaysan u tahay. marka dad waxaa jira un af Soomaali baad ku hadlaysaa, Soomaali baad tahay. intaad noqon lahayd Soomaali baxsaday, intaad jabaad baxsaday noqon lahayd Soomaali xidhmay aad noqotid. shacbiga Soomaalida, wiilashii dhalinyarada Soomaalida iska tahriibahayay ee Suudaan u socday, ee Liibiya u socday, ee waqooyiga Afrika u lugeynayay, bahashan qabrigan Ethiopia lagu wada xidhay. kuwii xamar laga soo dejiyay baa kamid ah, kuwa hadda lala yahay baa kamid ah, kuwa jeelasha gobolka Tigreega iyo Gambeelaha iyo Benishangolka iyo galbeedka Ethiopia xuduudda Suudaan boqolaal ku xidhan oo Soomaaliyaan ognahay. marka sidaadaba Soomaaliya goorta lagu xidhayo lama hubo. in lagu xidho waa la hubaa, laakiin goortan baad hubin. waan gartay. marka arrimahaasi mayna sii kala fogeyneyn wadahadaladii u dhexeeyay ONLFta iyo dowladda Ethiopia? wallahi wadahadaladaasi kuwa siyaay waxa weeyaan jawi soo dhaweynaya maaha in maxaabiista Soomaalida laga reebay maxaabiista Ethiopia. waxaa dhacay maxaabiista Soomaalida marka hadda la meermeerinayo oo leeyahay lama sii deyn karo oo maskaxda loo mayraya oo laguma kalsoono oo caafimaad ma qabaan, yacni dhaqan celin baa lagu sameeyay. Ethiopia dhaqan baa dawladda adduunka ku dhaqan xun baa lagu tilmaamay, xuquuqul insaanka ugu xun, ururada xagga siyaasadda iyo xorriyadda fardiga iyo xorriyadda wax abuurka iyo xorriyadda is-abaabulidda iyo xorriyadda qoomiyadahaba ku liidata. marka waxa Ethiopia baraysa ma garanayno. waxaa kale oo jira
soomaalida discrimination baa lagu sameeyaa si siyaasi ah. maxbuuska ku wada xidhan jeelka dhexe qaariti liyada ee soomaaliga iyo qowmiyadaha kale, soomaaliga ka dulman, wuu ka raashin yar yahay, wuu ka ciqaab badan yahay, wuu ka jirdil badan yahay, wuu ka naxariis daran yahay, wuu ka cafis yar yahay. sidaa daraadeed ba hadda jeelasha dhexe ee dawladda dhexe waxay dhahaan ay maamusho, dadka ku hadhay waa Soomaali un. jeelashii ku yaalay gobolka Soomaalida sidii u buuxaan. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xasan Hirmooge. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay dhinaca ismaamulka Soomaalida Itoobiya si ay uga jawaabaan eedeymahan uu ururka ONLF u soo jeediyey, hase yeeshee noomaanay suuragelin aanu khadka telefoonka ku helno. marka ugu horeysay ay noo suurta gashana waanu idin